السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحلان جنة الكاميرا لا سود وهذا ما نحن ربنا إن ندي كل وذاقه مدحوين ترام وحدوكتهن مركا قار مركو مالها قطبت كجيدين أيوه إسقونا الصومالية يوليبا إلا حان أن أفلقا دينين مجوغي كرو مركلة أي هدنا أرنتاسي شلي إسقو شر كصعدا قبل كفلوريدا كهدلي وإلهان أفلقا دي دالكين الصوماليانا أفلقا دي أرنتاسي وان إدلا وذاقية mid ka mid ah diyaaradaha tikidhada raqiiska lahaa ee Mareykanka shacabku ay raaci jireen oo saaka aroortii gabi ahaanba shaqadii joojisay iyadoo labadii toddobaad ee la soo dhaafay ay dawladdu isku dayeysay in ay badbaadiso oo lacag fara badan ay siiso haddana ma aysan suura gelin shidaalka diyaaradaha oo cirka isku sii shareeraya xirnaasaha marinka Hormuz iyo dagaalka uu Mareykanku kula jiray Iran darteed ayaana diyaaradaasi ay gabi ahaanba shaqada ay u joojisay haddaba diyaaradaasi maxay tahay shacabkii tikidhada ka jartay maxay sameyn karaan imise jeer ayaa hadda ka hor ay shirkadaasi qarka u fuushay in ay musallafto waan idinla wadaagayaa arrimahaasi oo idil iyo diyaaradaha kale oo hadda doonaya dadkii tikidhada diyaaradaasi ka goostay in ay caawiyaan isla markaana tikidho raqiisa ay siiyaan haddaba arrimahaasi oo idil ayaan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay ilaa iyo 4 sano hore oo xilka hayay iyo hadda ku dhawaad sanad ka hor markii uu xilka qabtay waxa uu aflagaadeynayay dalkeena Soomaaliya waliba xildhibaanada kaliya ee Soomaalida ah ee ku jirta Congress-ka Mareykanka Ilhaan Cumar Trump oo shalay ka hadlayay shir Florida ka dhacayay oo looga hadlayay in wax canshuura laga qaadin social security la siiyo dadka howlgabka ama dadka waaweyn ayaa mar kale dalkeena Soomaaliya aflagaadeeyay Ilhaan si xun u caayay Trump marka hore horta ammaan ayuu ku bilaabay wuxuu yiri dal qurux badan oo Soomaaliya la yiraahdo ayaa jira marka waxaan idin kula talin lahaa inaad soo booqataan arintaasi markii hore waxa uu u muuqdaa inuu si wanaagsan ku bilaabay oo dalkii uu amaanayo leeyahay waa dal qurux badan ee bal hala soo booqdo hala soo fiiriyo laakiin hadaladiisii lagu yaqiina ayuu gadaal ka raaciyay uu leeyahay dalkaasi waa dal aan bajirin uu ku leeyahay haddana hala soo booqdo ku dhahayay waa dal aan military lahayn aan dawlad lahayn isla markaana waxa kaliya ay leeyihiin ayuu yiri waa musuqmaasuq iyo sidoo kalena in pollution wasaq aad u fara badan ay halkaasi ka jirto laakiin wuxuu yiri xildhibaanad Ilhaan la yiraahdo ayaa ka timid wuxuu yiri iyadoo wadankaasi ka timid ayaa waxay doonaysaa inay anaga wadankeena sidii aan u maamuli lahayn ay noo sheegto waxay leedahay yiri dastuurku xuquuqdaas uu siinaya waliba isagoo si xun ugu dhawaaqaya muuqaalkiisa ay arki doontaan xuquuqdaasi ay dastuurka siinaya waa in xuquuqdaasi la isiiyo arintii been abuurka ahayd ayuu mar kale soo celiyay oo ahayd in ay walaalkeed guursatay arintaasi oo hadda dawladdu ay sheegayso inay baarayso laakiin arin cad aan ahayn oo dawladdu ay meel been ah ay sheegayso Trump iyo mas'uuliyiinta isaga gulihiisa wasiirada ay leeyihiin arintaasi baaritaan ayaan ku sameeynaa laakiin haddii ay jirto mar hore ay arintaasi baaritaan ku sameyn lahaayeen oo ay soo ogaan lahaayeen waxaan ognahay Ilhaan inay qaxooti ahaan wadanka ku timid iyadoo yar isla markaana ay halkan wax ku baratay sidoo kale Ilhaan Cumar waxa jirtay bishii hore in tire lacagaha la igu sheegayo 30 milyan ka badan in aan haysto waxba kama jiraan qofku sanadku markuu dhamaado canshuurta uu xareynayo waxa jirta lacagaha soo galay inuu sheego iyada iyo hadda ninkeeda wax la leeyahay ganacsiyo fara badan oo shirkad qamri iyo waxaas ayuu leeyahay marka waxa ay tiri xalad dhinaca xisaabta ayaa dhacay marka lacagteedu inay $100,000 ka yar tahay oo 80,000 ilaa 95,000 ay u dhaxayso ayay sheegtay oo qaladku dhinacaasi uu ka yimid marka Trump arintii ayuu soo qaaday wuxuu yiri bishii hore ma aragteen in ay tiri lacagta 38,000 oo la igu sheegayo ma haysto lacag 80,000 ka yar ayaan haystaa oo qalad dhinaca xisaabta ka yimid ayay arintaasi ahayd marka wuxuu yiri dadkan Soomaalida ah waxa oo kaliya ay yaqaanaan wuxuu yiri waa qiyaano iyo musuqmaasuq marka waa inaan wadankeena dadkan aan ka saarnaa marka Ilhaan ayuu sidaas u caayay dalkeena Soomaaliyana bilowga amaan ayuu ku bilaabay yiri wadan qurxanaha la soo fiiriyo markii dambana wuxuu yiri musuqmaasuq iyo dil iyo wasaq kaliya ayaa ka jirta marka waxaanu ku tilmaamay dal aan dawlad lahayn military aan lahayn aan waxba lahayn haddaba waa kan Trump oo shirkaasi ka hadlayay iyo sidii Soomaaliya iyo waliba Ilhaan uu uga hadlay leeyahay dhaqaalaha wadanka Mareykanka burbur miyuu ku dhow yahay wasiirka dagaalka ama wasiirka gaashaandhigga oo Congress-ka toddobaadkan ay su'aalo weydiinayeen waxa uu sheegay dagaalka Mareykanku kula jiray Iran in 25 bilyan oo dollar ay ku baxday laakiin lacagtu waxa la leeyahay intaasi waa iba ka badan tahay sidaas darteed
lixdankii maalmood oo madaxweynaha awood uu loo siinayay dastuurku in dagaalkan uu sii wadi karo shalay ayay ku ekayd laakiin wasiirka dagaalka markii kongareesku ay su'aalo weydiinayeen waxaa la yidhi kongareeska ogolaasho ma soo weydiisanaysaan marka wuxuu yidhi labadii toddobaad oo xabad joojinta ay jirtay nalooma xisaabinayo Trumpna sidoo kale waxa uu yidhi wax ogolaashaha ugama baahni kongareeska sidaas darteed hadda waxaa laga yaabaa in weerar kooban uu Mareykanku ku qaado Iiraan oo aan la ogeyn xilliga uu noqon doono maxaa yeelay Khamiistii ayaa gulihiisa amniga qaranka xitaa taliyaha saldhigga dhexe ee Mareykanka uu ka mid yahay ay ka soo qayb galeen weliba hub aysan weli horay Mareykanku uusan u isticmaalin ayaa laga yaabaa inuu isticmaalo sidaas darteed arrinta dhaqaalaha haddii aan u soo laabto diyaarad la yiraahdo Spirit Airline oo ka mid ah diyaaradaha dadka shacabka qaada isla markaana lagu yaqaano diyaarad tikidkeedu uu raqiis yahay ayaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay dawladdu waxay isku dayeysay inay badbaadiso waxay dawladdu doonaysay lacag 500 milyan oo dollar ah inay shirkadaasi diyaaradaha siiso 90% milkiyadda ay dawladdu ay yeelato laakiin arrintaasi waa la isku afgaran waayay marka diyaaradda Spirit Airline oo lagu yaqaanay in midabkeedu uu ahaa jaalle isla markaana magaceeda oo Spirit oo madow ah uu ku buufsanaa dusheeda ayaa xalay 9 saac markii ay ahayd gabi ahaanba shaqada joojisay diyaaradii ugu dambeysay oo rakaab sido oo Spirit ah xalay 6 saac iyo 17 daqiiqo oo habeenimo markay ahayd ayay waxay ka degtay garoonka Dallas Fort Worth ama DFW oo ku yaala gobolka Texas xitaa waxa la maqlayay towerka oo diyaaradaha laga hago oo dhahayo waan ku faraxsanahay muddadii aan idila shaqeynayna iyo bayloodyada kale oo u tacsiyeynaya bayloodyada diyaaraddaasi waday marka waxay weydiiyeen ma diyaarad kale ayaa idinka dambeysay markaasi waxay yiraahdeen waxaan rumaysanahay diyaaraddan inay tahay tii ugu dambeysay oo Spirit ah oo soo caga dhigata oo dad shacab sido marka diyaaradda website-keeda ayaa waxa ay dadkii tikidhada ka jartay ay ugu baaqday inaysan garoomada tagin isla markaana ay raadsadaan wadooyin kale oo ay ku safri karaan sidaas darteed gabi ahaanba xalay 9 saac ayay shaqada joojisay marka diyaaraddan Spirit Airline tikid raqiis ayaa lagu yaqiinay isla markaana dad fara badan ayay qaadi waaqday inay shaqadeeda joojinayso haddaba marka dadka tikidhada ka jartay haddii aad Soomaali ay jirto tikidkada ka jaratay tikidkaada ha cancelin isla markaana haddii aad kaarkaada credit cardka aad ku jaratay dispute kale isla markaana sheeg in lacagtaadii waa lagu soo celinayaa haddii aad sidoo kale debit cardkaada aad ku jaratay waa sidoo kale haddii tikidkaada uu caymis kuugu jirayna sidoo kale lacagtaadii waad helaysaa laakiin haddii kaararka ay shirkadu bixiso ama dhibcaha marka qofku uu tikid jarto oo diyaaradda raaco uu helo aad ku jaratay tikidkaada laguma soo celinayo marka diyaaraddan dad fara badan ayaa ku safri hadda bishan May aynu ku jirno 1.65 milyan oo qof ayaa tikid ka jaratay oo diyaaraddan inay raacaan ay ahayd waxa sidoo kale jirta in 1.7 milyan wadanka gudihiisa bishii February ee la soo dhaafay ay diyaaraddaasi ay ku safreen marka waxay mid ka mid ahayd diyaaradaha ugu waaweyn ee Mareykanka gudihiisa dadka shacabka isaga kala gudbiya wasiirka gaadiidka Sean Duffy ayaa shir jaraa'id qabtay isla markaana ku dhawaaqay in diyaaradda Spirit Airline gabi ahaanba shaqadii ay joojisay waxana uu sheegay in dawladdu isku dayday inay badbaadiso laakiin aysan u suura galin waxana ugu baaqay dadka tikidhadu ay u jarnaayeen in ay la xiriiraan diyaaradaha ay ka mid yihiin JetBlue American United iyo waliba Southwest iyo Delta kuwaasi oo tikidho raqiis ah oo $100 ilaa $200 oo one way ticket ah u ogolaan doona dadkii diyaaraddaasi tikidhan waxa la leeyahay marka dadka dhaqaaleyahanada waxay bilow u tahay dhaqaale burbur Mareykanka ku soo wajahan dagaalkan marka haddii uu bishan inta ka dhiman uu sii socdo marinka Hormuzna uu sii xirnaado xitaa waxa la leeyahay diyaarado fara badan ayaana dooli doonin maxaa yeelay sicirka shidaalka ee diyaaradaha ayaa waxa uu isku sii shareeraya cirkaasi Yurub waxa la leeyahay diyaarad duusha lama heli doono haddii ilaa iyo dhamaadka bishan marinka Hormuz uu sii xirnaado sidaas darteed ayaa hadda Mareykanka waxa uu raadinayaa isbahaysi wax ka qabta marinka Hormuz xitaa haddii dagaalkan uu dhamaado waxayna ugu magac dareen Maritime Freedom Construct waxa ay leeyihiin waxa aan doonaynaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo saldhigga dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM in arrintan ay iska kaashadaan isla markaana dhinaca sirdoonka la iska kaashado dhinaca diblomaasiyadda la iska kaashado iyo sidoo kalena in cunaqabatayno ay soo rogi karaan
ururkaasi isbahaysiga in ay sameeyaan. Marka waan arki doonaa arrimahan iyo waxyaabaha ka soo kordha, laakiin mid ka mid a diyaaradihii rakaabka Mareykanka u kala gudbin jiray Spirit gabi ahaanba shaqadeedii xalay 9 saac ayay joojisay. diyaaradeedii ugu dambeysay oo rakaab sidana si weyn uga jawaabay. shir jaraa'id ayayna waxa ay ku horqabteen xarunta USAID ay ku leedahay caasimadda waddanka Mareykanka ee Washington DC. xubno ay ka mid tahay Ilhaan Cumar iyo xubno mas'uuliyiin dimuqraadiyiin oo ku jira Kongareeska ayaa halkaasi shir jaraa'id ku qabtay. Ilhaan Cumar ka hor shirka jaraa'id ayaa barteeda Facebook waxay ku soo qortay Elon Musk oo ah bilyaneer aan la soo xulan waqti ma uusan ku lumin in uu adeegsado ama si qaldan u adeegsado galaangalkiisa uu ku iibsaday 290 milyan oo dollar. Macnaha waxay ka wadaa lacagtii Trump uu ku taageeray xilligii ololaha doorashada uu ku jiray ayaa waxay leedahay galaangalkii uu ku iibsaday inuu gabi ahaanba meesha ka saaro hay'adda USAID. barnaamijkaasi oo ay tiri waxa uu badbaadiyay malaayiin qof oo ku nool guud ahaan caalamka. waxay tiri dadkaasi ay ula jeedaa waa dad real people ah oo dad run ah, kuwaasi oo ku tiirsan gargaarkan muhiimka ah oo ay ku helaan cunto, meel ay gabaad ka dhigtaan, caafimaad iyo weliba inay ku badbaadaan. waxayna tiri go'aankan waxay tiri waa ay dhimanayaan sabab la xiriirta go'aankan hay'adda USAID gargaarkeedii lagu kansalay. markaasi kadib shirkii jaraa'id ayay ka hadashay oo xubnaha dimuqraadiyiinta ay ku horqabteen xarunta USAID ay ku leedahay caasimadda waddanka Mareykanka ee Washington DC. Ilhaan Cumar ayaa waxa ay hadalkeeda ku bilowday maanta waxay u tahay maalin aad u muruga ah waddanka Mareykanka. waxaan marqaati ka nahay ayay tiri qalalaase dhinaca dastuurka ah, iyadoo sidoo kalena sheegtay oo ah in muddah aan ka hadlayno. waxay tiri Trump waxa uu doonayay in uu kaligii tali noqdo maalinta goobaad, haddana waa arrintii ayaan u taagannahay. waxay tiri waa sida ay u taalo bilowga kaligii talinimada ayay hadalkeeda ay ku sheegtay. waxaana sidoo kale ay sheegtay marka aad dastuurka aad si qaldan u adeegsato adigana aad iska dhigto qofka keliya ee awoodda leh, taasi micnaheedu waxa ay tahay sida kaligii talinimada loo sameeyo. marka waxay leedahay Trump xilligii ololaha waa kii yiri